maalin wanaagsan waxaan rabaa halkan inaan ku soo bandhigo taariikh kooban oo ku saabsan Soomaalida Kenya aasaaskii magaalada Nairobi iyo caqabadaha ka hor yimaada Soomaalida Kenya inay qaataan dhalashada Kenyaati walow waayadan dambe ay u fududahay laakiin waayadii hore waxaa la marsiin jiray baarid iyo kuwana badan in badanna waa loo diiday ayagoo waddanka ku dhashay ku noolaa ku dhaqmay dhulkoodu ay yihiin Soomaalida waqooyi bari degta haddaba sababta aan igu soo celisay inaan maanta dib u xusaan waxaan rabaa sabtidii lasoo dhaafan waxaan ka qayb galay bandhig magaaladan lagu qabanayay oo gabar la yiraahdo Khadiija Cali Maxamuud ay qabanaysay waxay diyaarinaysay diiwaangelinta ka waa gobolka Nugaal weeye Garowe waxay sameysay diiwaangelinta dadka degan iyo naqshadaynta maapka magaalada ama deegaanka ama gobolka xuduudaha xaafadaha iyo deegaamada iyo gobolada ama gobolka dhexdiisa ama degmada marka mashruuc runtii mar hore inay bilaabmaan ama Soomaaliya laga fuliyay bay ahayd waxay noo soo bandhigtay in caqabadaha ka haysa hadaba inaysan dadku ku baraarugsanayn isdiiwaangelinta inaysan maamuladu aysan muhiimadii ay lahayd aysan arkayn ama uba jeedin in loo moodayo inay iyadu ama dhaqaale ku samaynayso ama caqabadahaas oo dhan baa hor istaagay marka in laga badidayo in la isdiiwaan gasho la diidayo sheekadaas marka waxa ay soo xasuusisay dhacdadan aan hadda ka sheekaynayo Kenya sidaan la wada socono waxay hoos imaanaysay gumaysihii Ingiriiska wuxuu ku soo rogay dadka markaa deganaa Soomaalida ah oo waqooyiga bari Kenya deganaa ama deegaankoodu yahay waxay ahaayeen dad xoolo dhaqato ah badanaa waxay kaloo ahaayeen dad reer guuraya xoolaha weliba dhulka daaqsinta leh Ingiriisku wuxuu ku soo rogay inuu u xuduudeeyo si markuu arkay socodka dadkan wuxuu xad buu u sameeyay aysan ka gudbi karin Soomaaliya si aysan ugu fidin deegaanada kale gobolkana waxaa caasimad uga dhigay magaaladan Mooyaale la yiraahdo asoo Kenya inta kale inuu ka qabtaan raba dhinac iskugu xiraya ayadoo taasi jirtaba waxa soo baxay sharciga canshuuraha waxa lagu soo rogay canshuur Soomaalidii inay bixiyaan canshuur xoolaha ay haystaan ama hantida ay haystaan canshuurtaas Soomaalidii gobolka waqooyi bari iyo Soomaalidii Nairobi ama magaalooyinka waaweyn oo Kenya deganayd way kala duwanaayeen horta laba wuxuu u kala saaray Soomaalida badana gudaha gasho oo asaga la socotay ama ciidamadiisa kamid ahayd ama uu ka keenay Soomaaliya ama cadan ka yimid laba qabiil oo Soomaalida kamid ah bay ka koobnaayeen waqooyi ka soo jeeda u badan marka wuxuu u bixiyay Soomaalida alien baa la oran jiray kuwa kale native Somalis baa la oran jiray haddana way ku adkayd inuu kala saaro labada qolo Soomaalida gobolka iyo kuwan asagu inuu kala qaybiyo laakiin way ku adkayd inuu kala sooco Soomaalida marka Soomaalida gobolka waqooyi bari oo degan marka lagu soo rogay canshuuraha badankood way diideen canshuurtii waxayna qasab ku noqotay inay xoolihii ula tallaabaan dhinaca kale Jubbaland gobolkan Jubbada Hoose Doobley dhinacaas ay Soomaali arag dadka qaar baa ogolaaday oo sindigamadooda wuxuu kaloo ku soo rogay warqadii kabaandhaha la oran jiray in la qaato warqadaasi marka qaadashadeedu waxay kaloo la socotay marka warqadaad kabaandhaha qaadatid inaadan safri karin ilaa aad wargelisid maaha ma socod magaalo inta ka tagtid meel kale ma aadi karin ama ma guuri karin ilaa ogolaansho aad xukuumadda weydiisid taasna waxay ku noqotay Soomaalida dabar kale oo lagu xiray looga xirayo waxayna qasab ku noqotay inay diidaan inay sharci qaataan waayo waxay rabeen inay socdaan waa dhinaca waqooyi bari markaan ka hadlayo
culumadii joogtay sidoo kale waxay soo jeediyeen canshuur in gaal ingiriisi la siiyo waa dembi bay yidhaahdeen oo nagumaba lahanba haddii la siiyana waxay noqonaysaa dembi bay noqonaysaa taasna daliishaasna way adeegsanayeen dhinaca soomaalida waqooyi bari dhinacan kale marka soomaalida ku jirtay oo way ogolaayeen ayagu inay cashuurta bixiyaan laakiin waxay diidanayeen warqadda kabandhaha la yirahdo inay qaataan waxayna ka codsadeen maadaama ay yihiin askar ama karaanayaal ama turjubaano ayaga u shaqaynaya in xuquuq gaara la siiyo oo aanan lagu xirin socodkooda iyo ganacsigooda iyo dadkaasi marka waxaa dhacday 1896 baa magaaladan la yiraahdo Nairobi asaaskeeda oo ahaa meel yaroo tuulo ahayd waxaa maraysay wadada tareenka oo laga soo qaadahayay Mombasa oo loo waday Kasumu meeshan la yiraahdo xuduud gobolkan Uganda la yiraahdo Harare Victoria ku taalo isku xiraysa wadadaas markii la marsiinayay meeshii markii la arkay deegaankan 1896 baa nin Ingiriis markii ugu horeysay wuxuu ka sameeyay geerash iyo bakhaar iyo suuliyo dhismihii dhagaxa ugu horeeyay ninkaas sameeyay kadib baa waxaa yimid 1899 wadada tareenka soo gaaray wadada tareenku markuu soo gaaray baa dad badan oo European cadaan ay yimid dadkii Afrikaanka oo Kenyaatiga ah way yimaadeen waxa kale oo la socdo jidka dhisayo u badnaa shaqaalihiisa waxay ahaayeen dadka Asiaanka Hindida uu ka keenay Hindiya baa wadadaas oo dhan dhisaysay marka magaaladii marka waxay ka koobneed 7 xaafadood xaafad marka waxaa la suuqa Hindida la yiraahdo Indian Bazaar baa la yiraahdaa meesha Hindida ahayd xaafadu waxay ahayd maamulka iyo businesska ay dadka Europeanka ay leeyihiin iyo xarumihii maamulka iyo waxaas ay noqdeen xaafadan hadda backline la yiraahdo Europeanka deegaankooda ay noqotay waxay kaloo jiray xerooyinka ciidamada in banaanka looga saaray magaalada Afrikaanka oo kale xaafadaha dhinaca baa la xijiyay aduu 7 xaafadood baa ahayd Soomaalidu marka Hindidiina lamaysan degin Afrikaankiina lamaysan degin waxay dhexda u gashay xaruntii maamulkii dawladdu meesha xaruntu ahayd bartanka iyo suuqii Europeanka cadaan ku lahaa bay Soomaalidu dhex degtay 4 xaafadood bay ka samaysatay 4 xaafadood marka ay guddi bay samaysteen ilaa 5 oday ah bay lahaayeen xaafadaha kamid ah marka waxaa ku magacaana xaafad walba odayga horjoogaha u ah baa ku qoran xaafada marka odayaashoo kale xaafada koowaad Soomaalida oo kale oday la yiraahdo Xuseen Cali baa ku qoraa Xuseen Cali markii xaafadiisa oo kale waxay ahayd 60 guri bay ahayd ama 60 dhowr bay 64 meelaha 64 taas content 7 qof baa iska lahaa Soomaalida arag xaafadan kale waxa ku xigtay nin la yiraahdo Xasan Xirsi la yiraahdo kale Xasan Xirsi xaafadu horjoogo u yahay marka magaca xaafadooda isaga qaadanaya ilaa 44 guri bay ahayd 2 xaafadood oo kale ka dambeysay adigu 4 xaafadood bay lahaayeen magaalada marka waxa ka dhacay waxa la arkay nimankan Soomaalida oo bartanka ugu jira suuqii cadaanka iyo Europeanka si looga saaro magaalada baa la go'aansaday waayo waxay ganacsigay ayagoo shaqaalihii dawladda waxay ku jireen haddana ganacsi bilaabeen xilliga magaaladaas waxay ka sameyseen dugsina waa ugu yaalay oo quraanka ah ama iskool ah ayaga sameysay masjidna waa ugu yaalay xaafadooda waxay gashadeen biyaha oo la gelinayo 355 rubi bay ka bixiyeen in biyo loo soo geliyo ilaa 20 nal baa ugu xirnaa xaafadooda 8 kamid ah nalalkaas waxay ku xirnaayeen masaajidka adigu waxa la istusay hadaba waxay bixiyaan canshuurta kamaandana ma qaadanayaan waxa la istusay in laga raro marka xilliga 1901 labadii 3 4 waxa ka dilaacay daacuun baa fidahayay marka waxa cadaan Ingiriisku nin loo xil saaray Simpson la yiraahdo uu soo rogay in nadaafad xumo ay ka jidha xaafada Soomaalida lagana raro daacuunka iyo wax walbana ayagu ay sabab u yihiin waayo
waxay ku haystaan xaafadoodii waxay ku haystaan ariga iyo soomada xoolaha la qalo magaalada oo dhan ayagaa keena xaafadda inay ku dhaxaysaan marka waxaa la yidhi kow waa in xoolaha banaanka loo saaro daacun cudurradan fidahayo bay qayb ka yihiin adigu waxaa go-aan lagu gaaray magaalada in laga raro lana dejiyo tuulo banaanka ah si aysan dadkana u dhexgelin una noqon dad wadaniyiina aysan u noqon loogana kala daadsho dabaqadan ay abuurahayaan oo maaragtay aysan ayagu lahayn waxaa loo saaray waxaa loo qorsheeyey magaalada Imbagati in la yiraahdo magaalada Imbagati la yiraahdo bay u qorsheeyeen qorshaha markuu soo baxay Soomaalidu way diiday marka guddiga 5 nin oo oday ah oo labada oday aan magacaabay Xuseen Cali Xasan Xirsi Abubakar Sugulle iyo Xasan Xirsi iyo Xasan sidaas iyo nin kale oo magaciisu iga luuseen adigu 5 nin bay ahaayeen shantoodii marka waxay sameeyeen waxa muhiimka ah halkan weeye shantii oday waxay sameeyeen oo guddiga loo xilsaaray lawyer bay qabsadeen lawyer markay qabsadeen bay waxay ka dacwoodeen lawyer kaliya markay qabsadeen waxay kaloo sameeyeen waxay u yeerteen kuwan architectka waxay naqshad in xaafad dhan oo ayagu leeyihiin in loo diyaarsho waxay isku dareen lawyerkii iyo naqshadii cusub xaafadii cusbayd waxay u gudbiyeen dowladda maamulkii maxkamiyadda meesha joogtay maamulahayay waxay u bandhigeen kow in ay u baahan yihiin xaafadan hadday ay ka guurayaan xaafaday dhisteen inay aadayaan intaysan taas aadinna in magdhow laga siiyo 2,000 oo pound ah xaafadda guuritaanka ay guurayeen guryahoodii magdhow in laga siiyo aysan guurayn ilaa magdhow la siiyo maaha arrinta dowladda Ingiriiska markay ku soo dhacday baarlamaankan Ingiriiska xilligaas dacwadu timid waa laga dooday waxay yiraahdaan maanta magdhow aan ka bixino waxay noqonaysaa qolo walba inay ku dayato oo lacag nool ku soo dalacdo dadkan haysano gumaysano oo dhan marka ka yeeli mayna inay albaab u furaan adigu way diideen haddaba waxay soo jeedisay Soomaalidu in xaafadooda dhismahoodii halka markay dacwadu marayso waxay ahayd 13 waxa bilaabmay dagaalkii koowaad adduunka dagaalka markuu bilaabmay waxa dhacday in qorshihii rarista oo dhan uu dib u dhaco dagaalku wuxuu dhamaaday 1916 ba haddana dib loo soo laba kacleeyay oo waxa la keenay in la nooleeyo qorshihii hore ah in Soomaalida laga raro xaafadda waxaana meesha yaala qorshaha ay keensadeen oo ah hadii la rarayo kow in magdhowda la siiyo labana in xaafad ay leeyihiin ayagoo ay dhisaankeeda samaysteen loo dejiyo adigu waxay jiitantaba waxay ku soo ururtay in loo ogolaado in xaafadan hadda Isliin la yiraahdo ay sal dhigtaan oo ay degaan Soomaali arag waxa la siiyay liis 100 sano noqonaya dhulka ah waxayna bixinayeen lacag ana hadda xasuusnaa cadadku intuu noqonayo isla xilliyada waxa bilaabmay marka guryaha dhismaha baa la isku qabsado guryaha ay salka u dhisayaan wuxuu ahaa alwaaxyo ama dhagax inta hoose inta saraan ay waxayna marka waxa lagu xiray gurigu intuu fiid noqonayo kor ayaga dalbaday Soomaali arag way maadaama cashuur ay bixinayeen adigu marka la isku soo duubo deegaankii wuxuu u wareegay halkaas xaafadan Isliin la leeyahay Soomaalidii deganeyd dhinacaas oo dhan xagaana loo soo raray markii dambe waxaana la deganaa xaafadda Isliin la yiraahdo oo marka hore la siiyay Hindi bay ahaayeen xaafadda marka waxay ku batay sidoo kale Soomaalidu waxay la timid xoolihii ay xagga ku haysatay meeshii la timid mar labaad ba sidoo kale caafimaadka loo adeegsaday in xoolihii laga qaado markii xoolihii laga qaaday ba haddaba sharci waxa soo baxay guryaha qaabka loo inay guryihii ay dib dhis ku sameeyaan naqshad la siiyayna ay raacaan moogta naqshada markii loo keenay haddana loo yara qabsaday waxay yiraahdeen kow annagu wax lacag aan haysano wixii waa naga baxeen xoolihii aan haysano ka ganacsanayna waa idinka saaray marka waxaan rabnaa inay noqoto idinku aad bixisaan lacagta moogta waxay noqotay lacag 12,000 oo pound in loo fasaxo si dib u dhis guryahoodii loogu sameeyo moogta Soomaali arag
qorshihiina halkaas ku waxs marka waxaa halkaa ka baranaysaa dadka xilligan noolaa oo waa dadka ninkii haysan jiray maxkamadaas uu ku waxaynayo dadka aan gumaysanoo dhan waa dadka ugu caqli badan bay ahaayeen bu soomad arag isla qoraalka aan hayo nin kaloo dhulmareynayo meesha marahayay sifa noocaas oo kale ku samaynaya moogta haddaba dadkaan xusayno ma ahan dadka maanta nool taa madaxa gashada khaladaadkii dhacay xilligaas oo ahaa inay sharciga diidaan inay kabaandhaha ama registrationka ay galaan 100 iyo intaasoo sano kadib 100 sano weeye maanta ama 100 sano iyo xoogaa khaladaadku waaga ay galaan ilaa maanta haysaa soomad arag inay sharciga qaataan marka waxaan ku keenay buugan iyo Soomaalida in la diiwaan gasho diidan inay weliba muhiimadda ay leedahay diiwaan galintu iyo waayo 100 sano kadib dhulka iyo dad kale waa in la yaqaan moogta laakiin haddaan la samayn cid walba oo timaado dhulka biro waa kula sheekanaysaa soomad arag waxaad adigu leedahayna ma ahan waayo caddayn aad ku caddayn kartid ma jirto moogta marka waxay soo xasuusay khaladaadkii waagaa la galahayay in weli xilligan ayadoo la joogo la galahayo aana lalahayn yaa Soomaaliya yaa haysa dhalashadii yaa soomad arag marka laba wax baan cashar baa ku jira mid waxa weeye dadkii xilligan noolaa dadnimada ay lahaayeen soomad arag iyo siday rag ama adduun wax ula qaybsanayeen iyo annagu meesha maanta taagannahay moogta dad badan ba marka taariikhda aan xusahayo qoraal la ii soo diray ama fariimo waxay leeyihiin waxa laga tagay waxa maanta jooga ba in wax laga yiraahdo u baahan laakiin waxaan iraahdaa ummad hadday inay sii jirta rabto waa inay taqaano inay horta marka hore jirtay moogta karaamo iyo sharafna ay lahayd haddii taa lagaa tirtiro oo aad moodaysid maanta xaaladda aad taaganta aad ku qiimeynaysid qof jiraba inaadan ahayn dadnimo iyo qiyam iyo waxa soo martay inaysan jirin mustaqbalkana wadada xun aad ku socotid maanta aad xisaabsatay aad ku soconaysa marka in la is xasuusiyo wixii la ahaa wixii lumay si dib loogu laabto dadnimadii iyo garashadii baa loo baahan yahay marka casharkaas intaasan kusoo gabagabeynaya maca salaama